assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa wareegga nolosha ee raha. Rahu waxa uu ka mid yahay xayawaanada la yiraahdo berribiyoodka. Waxa uuna ku nool yahay dhulkeena Soomaaliyeed. Berribiyoodka waxaa laga wadaa in uu ku noolaan karo biyo iyo berriba. Rahu waxa inta badan lagu arkaa meelaha biyo fadhiyeenka ah. Waxa uuna ka mid yahay xayawaanada dhiigga qabow. Raha wuxuu soo maraa 4 qaybood oo loo yaqaano wareegga nolosha ee raha. Raha tiisa dhiddiga ah ayaa waxay dhigtaa ukumo. Waxayna garab dhigtaa meelaha biyaha agtooda ah. Ukumahaas waxay ku qaadataa 6 ilaa 21 maalin in ay noqdaan lulume. Lumuhu lugama leh marka hore. Wuxuuna u dabaashaa sida kalluunka oo kale. Wuxuuna cunaa dhirta biyaha ka dhex baxda. 6 ilaa 9 isbuuc kadib wuxuu yeeshaa 2 lugo yaryar. Kadib wuxuu noqdaa rah yar. Wuxuuna yeeshaa sanbab iyo lugaha hore. Wuxuuna ku jiraa muddadan 12 week. 12 ilaa 16 isbuuc kadib wuxuu noqdaa rah weyn. Wuxuuna cunaa cayayaanka kale. Dib ayuu wuxuu u soo bilaabaa wareegga nolosha ee raha si ay rahyo kale u dhashaan. Mar haddii aynu baranay wareegga nolosha ee raha, ma uga sheekayn kartaa waalidka iyo asxaabta 4 qaybood ee wareegga nolosha raha? Xaqiiqooyin ku saabsan raha. Waxaa jira ugu yaraan ilaa 5,000 oo nooc oo kala duwan oo raha. Ma ogtahay raha qaarkood waxuu boodi karaa 330 sentimitir. Raha wuxuu ka cabaa biyaha saantiisa ama maqaarkiisa jirka. Culimada qaarkood waxay yiraahdeen meesha uu raha joogo waa meel barwaaqo ah oo caafimaad qabta. Haddii aad rabto in aad caruurta barto wareegga nolosha ee raha, waxaad website-keena 4 ilmo ama 4 ilmo ka helaysaa cashiro diyaarsan oo PDF ah. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. وجعلنا فيها جنات من نخيل